kulanti wanaagsan asxaabta dhammaan galab wanaagsan meel kasta caalamka ka joogtaan waa waan idin salaamayaa asxaabta annaga galabay noo tahay galab wanaagsan qaar ayay u tahay duhur wanaagsan waxaan joognaa meel mid ka mid ah sidaan hore idinkuga ballan qaaday waa qaybtii labaad waxaan joognaa magaalada Paris qayb ka tirsan meelaha dalxiiska amba aadka ah dadka yacni ay u soo booqdaan wadankan wuxuu leeyahay meelo fara badan oo oo يعني قديمي oo dalxiisayaasha ay yimaadaan halkan hadda sidaa u jeedaan waxaa ku qoran archeolog waa qaybta yani waxyaabaha lagu keydiyay wadanka annaga madxafa u naqaanaa soo maaha meelahaas u naqaanaa marka ilaa September ayay xirnaanaysaa waxaa ku qoran ilaa September inay xirnaanayso waan soo dhaweynayaa ilaa bisha September halkaana laga geli jiray dadka curyaamiinta halkaas ka galaan marka waa waxyaabaha qadiimiga ee qarnigii 18aad ilaa 17aad waxyaabihii qadiimiga ayaa yaalo halkan marka galab wanaagsan marka hore bal soo dhawaada meelaha caanka ah oo waxa idinka bari doono ayaa galabta joognaa mid ka mid ah wajidin dadkaas oo dhan waa dalxiisayaal dalka ayay yimaadeen waxay ka yimaadeen wadamada deriska I think inkastoo diyaaradihii wadamada qaar diyaaradahoodii waa la furay qaar lama furin marka wadamada isku furan yihiin diyaaradaha iyo isku socodka ayaa booqashadii waxay bilaabeen already ama deja way bilaabatay marka waxaan idin leeyahay galab wanaagsan soo dhawaada galab wanaagsan nasiib daro way xiran tahay ilaa bisha September maadaama xanuuno iyo waxaas ay jiraan lama ogola in meelaha la galgalo la taataabto gudaha because markii la daawanayo dad fara badan ayaa gudaha galay marka si aysan taasi u dhicin lama doonayo marka in dadka gudaha ay galaan marka dibadda baa ka eeganaysaa marka waa meelaha ugu caansan waxyaabaha qadiimiga ay yaalaan qarnigii 18aad taariikhdoodii ayaa yaalo qarnigii 18aad 17aad ilaa 19aad ilaa qarniyadan dambe yacni waxyaabo fara badan ayaa yaalo insha Allah marba idin soo gudbin doona gudaha markii la ogolaado hadda sidii xanuunka u dhacay waa la joojiyay ilaa bisha September gudaha ma geli kartid gudaha lama geli karo marka si aan dusha idinkaga tuso siduu yahay dusha ayaa idinka tusaaya marka halkaana laga geli jiray marka waa dhankaas laga galaa hoostaas tigidha la goostaa marka waad u jeediin waa la xirxiray meelihii waxaa kaloo xusid mudan aan rabaa halkan meelaha qadiimiga ay yaalaan amba loo soo daawasho tago waxyaabihii qarnigii 18aad 17aad waxaa wehelisa halkan waxaa ku taala waxaa ku yaalo meelo caan ah maxaa ka mid ah waxaan filayaa inaad maqasheen in ay gubatay hadda ka hor kaniisadii weyneed Notre Dame la dhihi jiray Notre Dame de Paris ama hooyadii Paris waa halkaas wataas waa ogeedeen dabkii ka kacay hadda dhismaha ku socoto dayactir ayaa ku socdo marka waa la dhisayaa dhismaha socdo marka aad u jeediin wiishashka saaran waa qadiimi qarnigii 17aad dhisneed ilaa qarnigii 18aad hadda cusboonaysiin ayaa socoto يعني waxaa idin soo duubaya xoogaa yar oo kooban oo muhiim ah laakiinse muhiim ah meelaha ugu caansan waa xudunta Paris way halkan haddaan webigii maalinta meeshaan joogo webiga wuxuu iga jiraa dhanka dhabarka dambe hadda webiga waa ka soo talaabay laakiin webiga wuu maraa meelaha dhan wuu maraa webiga
halkaas ujeedin webiga wuu maraa waa meel aad u qurux badan laakiin halkaas faraskaas waxay ka dhigan tahay taariikhda waddanka mid ka mid ah taariikhda waddanka waaye dadkaas oo dhan ujeedin way soo galayaan yacni way soo daawanayaan meelihii la gelgeli jiray gudaha ma jirto bannaanka laga daawanayaa sababtoo ah yacni weli xanuunkii ma dhammaanin waxaa loogu talagalay in nacam yacni laga hortago in si xanuunka laysku qaadsiinin marka kaniisaddaas ayay dadka soo booqdaan yacni kaniisadda laguma dukado hadda oo yacni ma galaan dhismaha ku socdo maadaama uu meelo muhiima ka gubtay derbiyaa lagu wareejiyey derbiyadaas arkaysaana lagu wareejiyey tendheerina lagu sameeyey dhismaha ku socda wiishash ayaa saaran waxaa laga yaabaa la yiri in dhowr sano dambe dhismaheeda sii socoto marka waxay u yimaadaan waxa yaalo waxyaabo qadiimi ayaa yaalo kaniisadaas Notre Dame al dhahaa Bari waa meel caan ah oo dalxiisayaasha caalamka ayaa yimaada wadamada waxaa laga yimaadaa wadamada adduunka dacladiisa ayaa laga yimaadaa halkan u yimaadaan bal inay soo daawadaan waxay u imaanayaan kaniisada meel kasta way taalaay waxay u yimaadaan waxyaabo qadiimi ayaa yaal waa kaniisada ugu qadiimisan Faransiiska waa waxay leedahay laamo kala duwan ayay leedahay marka maadaama laamo kala duwan ay leedahay halkan meesha ugu weyneed waaye xitaa ardayda ayaa yimaado wax ka barto maadooyin qaar waxaa loo dhigaa waxyaabihii qadiimiga dadkii hore isticmaali jireen Faransiiska qaasatan taariikhda magaalada Paris marka dadkaas ujeediyay dhan waa dalxiisayaal marka galab wanaagsan ayaa idin leeyahay si bal aan wax uga ogaano taariikhda waddankan mar ayaan halkaas geli doonaa hoosta hadda lama geli karo hoosta bannaanka ka daawanaysaa bes yaa soo dhawaada idin leeyahay galab wanaagsan dusha ayaa idinka tusayaa onle halkaas waa meesha laga gelaayo waa hadda waxa waaye waan yaro istaagayaa anaa waxay dadkaas oo dhan baa daawanayo waxa loo daawanayo ma aha kaniisad ahaan waxa loo daawanayaa waxyaabo casri waxa yaalo waxyaabo oo qarniyadii hore dadkii hore isticmaali jireen ayaa la dhigay ayaa yaalo marka hadda qof walba bannaanku ka daawanaya ma ahan meel oo inta la galo aad soo daawan kartid ma ahan sidaa dareemaysiin maadaama muddo 3 bilood 4 bilood xanuunkaana socdo magaalada Parisna weli xanuunkii kama baabi'in amba kama dhammaanin xaggaas webiga maro meeshaas hadda aan ku aadiyay webiga maro ilaa halkaasuu maraa Paris uu dhex maraa yacni meesha hadda aan joogno oo maalinna aan imaanayay waxaa la dhahaa xudunta Paris ama halbowlaha wadnaha Paris waaye waxay caan ku tahay meeshan waxyaabo badan oo dadka dalxiisayaasha ay jecel yihiin ayaa ku yaalo waxaa ku yaala jaamacado waxaa ku yaala meelo dalxiis meelo oo hadda sida hadda meeshan aan hadda idin tusayo kale waxyaabaha oo qadiimiga ay yaalaan waxaa ku badan waxyaabaha dhaqanka waxyaabo badan oo waddankan taariikh ku leeyahay ayaa ku badan marka sidaas daraadeeda maalin kalena meelo kale idin tusi doonaa haddii ilaahay yiraahdo annaga berita fasax aan nahay magaalada waa fasax waa 14 maalintii ay iska xoreeyeen boqortooyo waddankan wuxuu lahaa boqortooyo magaalada Paris ka dhisneed oo boqortooyadaas waxay sameyn jirtay
dadka ayay aad u cadaadi jirtay sida la sheegay boqortooyadaas qarnigii 17aad 1787 I think ahayd marka way iska hoos qaadeen waxay ahayd boqortooyo aad u gumaysan jirtay dadka hal mar ayaa waxa ku taalay qalcad weyn oo dadka lagu soo xirxiri jiray xabsiye ayaa ku yaalay oo dadka lagu xiro marka dadweynihii oo aad u mudaaharsan ayaa waxay galeen meesha loo yaqaan Bastille loo yaqaan waa meelaha caanka ka ah wadanka marka dadweynihii banaan baxaya ayaa qarnigii 17aad qarnigii horaantii qarnigii 18aad intaan la gelin ayay ahayd marka la furtay qalcadaas la furtay furashadii Bastille la dhahaa marka waxaan rabaa documentary fiican inaan mar idinkaga diyaariyo barnaamijyada noocaas oo kale ah hadda maadaama la kala xiran yahay meelihii gudaha lama ogolo in la galo banaanka inaan idinkaga duubo maahan gudihii waxyaabo badan aan tusi lahaay idima tusi karo laakiin meelaha oo qalcadaha oo dusha banaanka iyo taalooyinka caanka ku ah iyo waqtiga taariikhdii la dhisay waa idinkaga soo duubi karaa insha Allah taala barnaamij muhiim ah ayaa idin soo gudbi doona helicopter ayaa dushaas marayso helicopter ayaa dushaas marayso marka meesha waa meel xasuus leh waaye meesha waa meel xasuus leh oo ay ku xisaabtamaan kumanaan kun oo qof ayaa imaado sanadkii malaayiin kun oo qof ayaa imaado kuwaasoo jecel in ay ka faa'iideystaan taariikhda wadankan taariikh fara badan ayuu leeyahay mar kale waxaan leeyahay galab wanaagsan dadweynihii ayaa soo qulqulaya marba marka ka dambeyso cadceed kulul ayaa jirto qorrax ayaa jirto waqtiga dalxiiska ugu fiicnaa ayaa lagu jiraa marka galab wanaagsan ayaan leeyahay meel kasta caalamka joogtaan dhammaan asxaabteyda ehelkayga waan salaamayaa meel kasta joogtiin Soomaaliya reer Soomaaliya waan salaamayaa Muqdisho waan salaamayaa dhammaan gobolada dalka Soomaaliya waan salaamayaa ehelkayga asxaabteyda meel kasta caalamka joogtaan galab wanaagsan waa qalanjo idin salaamaysa Paris oo idin leh galab wanaagsan ku soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyada taxanaha ah ee qaybtii labaad barnaamijkii wax ka ogow amba wax ka baro meelaha caanka ah ee dalka Faransiiska wax ka ogow dad aad u fara badan ayaa meeshan ku soo qulqulayo dalxiisayaal ah badanaa dadka meesha imaanaya waa dad dibadaha ka imaaday oo u yimid inay daawadaan goobaha taariikhiga ah ee yaalaan taariikhda Faransiiska wadankan Faransiiska wuxuu leeyahay taariikh fog ayuu leeyahay oo ay ku xisaabtamaan waa wadan xadaarad leh oo yacni ilaa qarnigii 14aad 15aad 16aad 17aad aad ayay u xiiseynayaan aad xitaa caruurihii la soo waday marka adinkoo dalxiis ku imaanin bal ka faa'iideysta meelaha qaar bal inaan idin tuso insha Allah taala hadday noqoto toddobaadka dambe anigoo lugeynaya laga yaabaa inaan meelo far badan tago haddaan taga xataa marba meel aan tagi doonaa insha Allah macni gudihii ma la gelaayo dhismihii lama gelaayo ma fahanteen marka waa inaad saa u fahantiin dhismaha lama ogola in la galo sababtoo ah xanuunkii ayaa wili socdo marka qof walba banaanku ka daawana awal safaf dhaadheer meelaha la geli jiray gudihii la gelayaa waa soo daawanayaa marka safafkii ma jiraan waa u jeedin dadkii dibadda ka daawanayaan meesha u jeedin waa meesha laga galo halkaas laga geli jiray halkan dadka ku safan jiray doorbin ayaa halkaas ku yaala doorbinkaas waxay ku eegayaan daartaas dheer ee caanka ah ee gubatay sanadkii hore marka
walow ay gubatay dhismaha ka socdo dhismahaas wiishash ayaa saaran u jeediin waa la casriyeynayaa dhaqaale far badan ayaa ku bixi doono dhowr sano ayuu socon doontaa marka dhowrkaas sano ay socoto dadka laakiin dusha ayay ka daawo doonaan oo gudaha la geli jiray gudaha inta la galo ayaa waxyaabo caan ah yaalo marka kaniisadan waxyaabo caan ah yaalo meeshii ugu dheereed munaaradii ugu dheereed way gubatay waagii ay gubatay waad aragteen oo idaacadaha caalamka dhan ay soo sii daayeen meesha ugu daran ay gubatay waxay munaaradii dheereed way dhacday marka muddo habeen iyo maalin ay gubanaysay marka dadkan dalxiisayaasha ah aad ayay u jecel yihiin dalxiiska aad ayay u jecel yihiin waddan kasta horta wuxuu leeyahay goobo caan ah goobo caan oo leeyahay waddan kasta laakiin dalka faransiiska aad ayay dalxiisayaasha ugu badan yihiin khaasatan magaalada Paris marka maalinba meel ay idin imaan doonaa hadda maalin dheed webigaan tusiyey hadda waxaan joognaa meeshaan ay yiraahdaan ay taalo taariikhda faransiiska yacni waxyaabaha qadiimiga ayaa yaalo sidoo kale meeshii gubatay Notre Dame waaye halkan inaa maqasheen waa laga yaabaa ayaga xiise gaar ah ayay u leedahay yacni waxa idin tusinaya waxay tahay maadaama ay gubatay dad badan ayaa gudaha geli jiray oo waxyaabo qadiimi ahoo qalab ay isticmaali jireen iyo waxyaabo badan ay isticmaali jireen ayaa halkan yaala marka waxaa igu hareereysan dhismayaal fara badan oo u jeedin dhismayaashaas oo dhan waa dhismayaal aad muhiim u ah iyo dhismayaasha dawladda dhismayaasha ay yaalaan waxyaabaha muhiimka u ah waddanka waa meesha ugu businesska badan waa meesha ugu dhaqdhaqaaqa badan waa meesha kuman boqolaal baabuur ah ama gawaari ay basas ayaa iskaga goosha dhinac kastood ka eegtid ammaankan wuu sugan yahay meel walba ciidan ayaa jooga ciidanka ayaa diyaar ku ah si looga hortago dadka ajaaniibta amba dalxiisayaasha ama dadka waddanka ku noolba ammaankiisa loo sugi lahaa marka waan salaamayaa waa qalanjo idinla galab wanaagsan soo dhawaada haye sidee u aragtaan barnaamijkan oo idin bilaabay sidaan hore idinkugu sheegay YouTube-kayga ayaan gelin doonaa barnaamijkan Khadiijo qalanjo ayaa idin salaamaysa YouTube-kana waad kala socon doontaan qaybtii labaad waaye barnaamijkan isla eriyadii aan maalintii imaaday oo kale agteeda waaye marka eriyadaasaan maantana soo gaaray barnaamijka qaybtii labaad waa galabta in soo gudbinayaa meelo kale muhiimna waa idin tusi doonaa sidaan hore idinkugu sheegay gudaha lama geli doono dibadda ayaa ka daawan doontaan dibadda ayaad ka daawan doontaan waxaa jira boqortooyooyin waddankan ka talin jiray waa boqortooyina ka talin jiray waxay lahaayeen nidaam gooni ayay lahaayeen sida waddankan hadda waa waddan dimuqraadi ah oo yacni ilaa 5 jamhuuriyadooda soo martay kadib markii ay ka gudbeen marxaladihii boqortooyada iyo maamulkii kala talisnimada ahaa markay ka gudbeen waxaa soo martay 5 jamhuuriyadood jamhuuriyaddii 6aad iyo tii 5aad ayaa hadda yacni bilaabanayso horaantii jamhuuriyaddii 6aad ayaa la filayaa marka waxaa jira يعني حسوس قارة ودن كسته حسوس أيو ليه هاي وكو حسابته من هذا سومالي وكل حرية دي سوم حسابنا وقتي حرية عن قاعدنا حسابنا هنا مركا ودن كان وحيل هاي بقرتويو قلعة باريس قلعة كأولي جرتي وكسابسن dadka ayaa si aad ah loo xukumi jiray يعني أد أيه جوهر إمادين دجال
yacni qalcaddiyaa la jebiyey xoog ayaa lagu soo furtay qarnigii 17aad dhammaadkiisi ayaa la soo furtay qalcaddaas dad badan ayaa ku xirnaa xabsiya ayaa ku yaalay nidaam talis kelitalis u ahaa boqortooyo ahayd marka waddankan aad ayay xasuustaan yaa 14 Juulaay waaye 14 Juulaay waa maalintii waddankan ay soo furteen xorriyaddooda ay qaateen nidaamkaas iska rideen marka taariikh ayay leedahay hadday ii suurta gashay berita ayaan taasna idin samayn doonaa insha allahu tacaala marka intaas ayaan galabta idinku soo gabagabeynayaa barnaamijkan yacni faraskaas ninka saaran oo kale ayaa aad dadka ay u daawanayaan dadkaas ujeediin yacni hadda meesha lama geli karo waxaa lagu wareejiyey waxyaabahaas aa ujeediin sawirada gacmeedka ah waxaa lama ogolo in la galo dhismaa ka socoto dibadda laga daawanaya qof walba oo yimaado dusha ayuu ka daawanayaa marka tikidyaal loo soo goostay caalamka dushiisa America Aasiya Yurub aa laga kala yimid marka inkastoo Aasiya hadda ay ku yar yihiin dadka imaanaya sababtoo diyaaradihii si fiican uma furmin wadamada qaar ayaa la furay marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan qaybtan intaan qayb la mid ah ku kulmi doono waa qalanjo oo idinku dhaafaysa galab wanaagsan ayaa idin leeyahay tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh